meesha ay Ukraine dib uga riixday Ruushka ayaa si cad u muuqata. wadadan ku taala magaalada Bucha oo ka baxsan Kiev ayaa waxaa yaala taangiyooyin la qarxiyay baabuurta gaashaaman. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa booqday magaalada isagoo ka hadlay arxandarrada halkan ka dhacday. waxaan aaminsanahay in kuwani xaqiiqdii ay yihiin dembiye dagaal. waxaan aaminsanahay inuu yahay xasuuq sababtoo ah caruur ayaa la dilay, haween ayaa la kufsaday, dad rayid ah ayaa la toogtay. maalintii oo dhan waxaan aragnay caddaymo dil ula kac ah. tuulada Motoshin waxaa laga helay xabaal aan hoos u qodnayn. 4 qof oo meyd ah ayaa la arkay oo qayb laga aasay, balse saraakiisha ayaa noo sheegay in intaasi ay ka badan karaan. Olha Sukhenko oo 51 jir ah, ninkeeda Igor iyo wiilkeeda Alexander oo ahaa 25 jir, waxay ahayd madaxii tuulada. waxay ku noolaayeen gurigan. saraakiisha ayaa rumaysan in askarta Ruushka ay u dileen caawinaadda ciidamada Ukraine. magaalada Bucha qaybta hoose ee dhismaha waxaan ku aragnay meydadka 5 nin kuwaasoo gacmaha laga xiray, qaar madaxa laga toogtay iyo xabadka. waa sawiro aad u foolxunaanan muujin karin. Vlad ayaa gacan ka geysanayay ururinta meydadka la helay. dadka waxaa madaxa ka toogtay gacan ku dhiigle Ruush ah, dadka baaskiilada wata, kuwa baradhada keenaya. waxaan kuu sheegi karaa sheekooyin badan, laakiin ma rabo. waxaan rabaa inaan ilaabo. raggan weli lama aqoonsan. duqa magaalada ayaa sheegay in la dilay in ka badan 300 oo qof. waxaa weli halkan Bucha laga helayaa meydadka. argagixii dhacay ayaa hadda soo ifbaxaya, laakiin weli waxaa jira meelo badan oo ka mid ah waddanka uu gacanta ku hayo Ruushku. qofna ma garanayo waxa halkaas ka socda. suurtagal ma tahay in Ruushka si nabadeed loola hadli karo? ayaan weydiinay madaxweyne Zelensky. Ukraine waxa ay mudan tahay nabad. dagaal kuma noolaan karto. maalin walba ciidankeedu waa ay dagaalamayaan, laakiin ma rabno in malaayiin ruux ay naftooda ku waayaan. taasi waa sababta wada hadal loogu baahan yahay.